asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti habboon daawadayaal meel kastoo dunida dacladeeda aad ka joogtaan kusoo dhowaada manfaca t v qodobada wararka caalamka aan idin hayna iminka waxaa ugu waaweyn hogaamiyaasha reer yurub oo zelenski ku wehelin doono booqashada trump ciidanka badda israel oo gantaallo ku dhuftay xarun tamar oo ku taalo koonfurta sanca ee dalkaasi yemen iyo sidoo kale hawada israel oo si kumeel gaara loo xiray kadib gantaal laga soo tuuray yemen qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsanayaan idin haynaa aynu ku horeyno warkan degdeg ah telefishinka israel ee channel 12 ayaa sheegay in hawada tel aviv si kumeel gaara loo xidhay kadib markii gantaal laga soo ganay dalka yemen wasiirka difaaca ee israel ayaa sheegay in xuutiyiinta ay heli doonaan jawaab adag haddii ay isku dayaan in gantaal ay kusoo ridaan israel waxaan saarnay buu yidhi cunaqabateyn dhinaca cirka iyo badda xuutiyiintu waxaanu weerari doonaa kaabayaashooda mana ahan tan oo keliya bilow waxaynu horey u weerarnay kaabayaashooda buu yidhi gantaalka yemen ayaa sababay in duulimaadyo dhowr ah loo weeciyo garoonka diyaaradaha ee tel aviv xogta hagista duulimaadyada ayaa muujisay carqalad ku timid dhaqdhaqaaqa diyaaradaha garoonka caalamiga ee ben gurion ee ku yaala duleedka tel aviv kadib cabsi ka dhalatay gantaalka yemen laga soo riday xogtan laga helay mareegtada radar 24 ayaa muujisay in 9 diyaaradood oo rakaab ah oo kusoo jeeday tel aviv islamarkaana ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah sida amsterdam munich berlin boston vienna new york iyo abu dhabi iyo dalka greega lagu qasbay in ay ku dul wareegaan badda mediterranean-ka iyo xeebaha israel xogta waxay kaloo muujisay in duulimaad rayid oo gaar ahaana duulimaad rayid ah oo jordan ka yimid ama urdun ka soo kacay islamarkaana ku socday antaliya turkiga lagu qasbay loo wiciyo meel kale dhawaqa gawaarida gurmadka degdega ayaa ka yeeray magaalada tel aviv iyo gagaarkeeda magaalada qudus iyo dhowr magaalo kale oo bartamaha israel ka mid ah waxay warkaasi kusoo kordho wararkayaga dambe ayaad ku maqli doontaan dhanka ukraine iyo sidoo kale ruushkana hogaamiyaasha yurub ayaa ku wehelin doonaa madaxweynaha ukraine volodymyr zelensky inta lagu guda jiro boqoshadiisa magaalada washington d c ee dalka maraykanka iyagoo wada dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ruushka iyo ukraine kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka laabtay qorshihiisii xabad joojinta iyo hanjabaadii cunaqabateynta ahayd ee ugu goodiyey ruushka kadib shirkii alaska ee la yeeshay ama uu la qaatay madaxweynaha ruushka valadimir putin in la xaqiijiyo xabad joojin markaasi ka dhalata ukraine gudaheeda in ka badan 3 sano kadib weerarkii ruushka waxay ahayd mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee Trump ka hor shirkii Alaska Jimcihii kaasi oo Ukraine iyo xulufadeeda Yurub aan lagu casuumin wakiilka gaarka ee Mareykanka Steve Witkoff ayaa sheegay xaddii in Putin uu ku ogolaaday shirkii uu la yeeshay Trump iyo Mareykanka iyo xulufada Yurub ay Ukraine usoo bandhigi doonaan damaanad amni oo u dhiganta difaac wadajir ee dhanka NATO taasi oo qayb ka noqon karta heshiiska mustaqbalka lagu soo afjarayo dagaalka socday muddo 3 sano iyo bar madaxweyne Zelensky oo ka hadlay Brussels dalkaasi Belgium axadii kadib markii uu la kulmay madaxweynaha guddiga Yurub waxa uu sheegay in is-horfadhiga ciidamada labada dhinac ee dagaalka ee hadda jira ay noqdaan saldhig wada hadal oo dhanka nabadda shirkii jimcaha ee Trump uu la yeeshay Putin oo aan ku soo dhamaan sidii la wada rajeynayay natiijo muuqato Trump ayaa meesha ka saaray xabad joojin degdeg ah taasi oo faqsaneed mowqifka Putin kaasoo muddo dheer ku doodayay in wada hadallo qoto dheer la yeesho si heshiis nabadeed oo kama dambeys ah loo helo warbixin uu qoray jaraa'idka New York Times ee Mareykanka ayaa sheegay in kadib kulankii Putin madaxweynaha Mareykanka uu hogaamiyaashii Yurub u sheegay in uu soo jeediyo qorshe lagu soo afjari karo dagaalkan uu ku saabsan in Ukraine ay dhul ka tanaasusho gaar ahaan ay dhul u tanaasusho dhanka Ruushka Ukraine iyo xulufadeeda Yurub ayaa si adag uga hor yimid mowqifka Putin oo ay ku tilmaameen mid waqti iibsasho ah in Ruushka uu ku sii xoojinayo weeraradiisa waxayna muujiyeen walaac ku saabsan talada Trump ee beddelka dhulalka maalinimada Isniinta ee fooday nagu soo haysa iyagoo muujinaya midnimo iyo adkaysi madaxweynaha Mareykanka ayaa hogaamiyaha Jarmalka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ra'iisul wasaaraha Britain xogayaha guud ee NATO madaxweynaha Finland ra'iisul wasaaraha Talyaaniga iyo sidoo kale qaar kale oo fara badan ayaa gaari doona magaalada Washington ee dalka Mareykanka iyagoo markaasi midnimo iyo garab istaag u muujinaya Zelensky ka hor safarkan waxaa barta Twitter-ka lagu soo qoray in ay soo dhaweyn doonto Zelensky kulanka Brussels axadii kaasi oo hogaamiyaasha Yurub qaar kale oo ay ku biiri doonaan muuqaal ahaan kadibna ay
ku wajahan ama ku weelan doonaan safarka Mareykanka sida ay dalbadeen hogaamiyaasha reer Yurub. Qorshaha socdaalka kooxeed waxa uu muujinayaa awood iyo badbaado tiro badan, iyadoo xasuusta weli ay kasii jirto dhaleeceynta Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance ee February ay kula kulmeen Zelensky aqalka cad, halkaasi oo ay ku tilmaameen in uusan aqoonin mahadnaq iyo ixtiraam midna. Inkastoo Zelensky uu soo dhaweeyey dadaalada Trump ee lagu soo afjari lahaa dagaalkan, hadal uu Sabtidii ku qoray baraha bulshada ayuu kaga digay in ay qaadan karto dadaal weyn in Ruushka uu yeesho rabitaan uu muddo dheer markaasi deriskiisa uu si nabad ah kula noolaado. Madaxweynaha Ukraine waxa uu si cad ah u sheegay marar badan in Kiev aysan dhulkeeda wax ka tanaasuli doonin si ay u hesho xabad joojin. Dastuurka Ukraine ayaa mamnuucaya in dhul laga tanaasulo buu yiri. Sida uu sheegay Zelensky, Putin waxa uu dalbaday in Ruushka lagu wareejiyo dhammaan gobolka Donetsk ee bariga Ukraine, iyadoo 3 meelood meel uu Kiev weli gacanta ku hayo. Beddelkeeda, ciidamada Ruushka ayaa joojin lahaa weerarkoodii gobolka xeebta badda madow ee Kherson iyo gobolka kale ee koonfurta Ukraine, halkaasi oo magaalooyinka waaweyn oo ay weli ku jiraan gacanta Ukraine. Horaantii bishan, madaxweynaha Ukraine ayaa yiri in ciidamada Ukraine aysan dhulkoodii markaasi gumaysi sii ahaan doonin, isagoo xusay inuusan lahayn awood uu ku saxiixo tanaasul dhuleed. Waxaana uu ku adkaystay in wax ka beddelka xuduudihii 1991 uu ka hor imaanayo dastuurka dalkaasi. Ruushka waxa uu qaaday duulaan ballaaran oo Ukraine ka dhanaa bishii Febraayo 2022, waxaana uu inta badan si tartiib ah uga sii fiday bilihii lasoo dhaafay, isagoo gobollo badan gacanta ku hayo. Qoraal uu soo saaray kadib shirkii Alaska, Putin waxa uu muujiyey inaysan jirin wax isbeddel oo ku yimid dalabaadka Ruushka oo ay ka mid yihiin in Kiev lagu hor istaago inay ku biirto NATO. Waxa uu sidoo kale uga digay Ukraine iyo xulafadeeda Yurub inaysan carqaladeyn, islamarkaana inaan la isku dayin in la joojiyo horumarka soo baxaya iyadoo la adeegsanayo kicin ama khiyaano markaasi hoos u socota. Hadda waxay diiradda saarayaan diblomaasiyad, waxaana u wareegatay wadahadallada Zelensky uu la yeelan doono hogaamiyaasha Yurub ee aqalka cad maalinimada Isniinta. Waxa uu siiyey Fox News wareysi kadib kulankiisii Putin. Trump ayaa soo jeediyey in mas'uuliyadda lagu soo afjarayo dagaalka ay hadda dusha ka saaran tahay madaxweynaha Ukraine, isagoo sheegay in la qorsheynayo shir 3 geesood oo lala yeesho Putin. Laakiin awoodaha Yurub waxay doonayaan in ay ka shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa shir 3 geesood oo u dhexeeya Trump, Putin iyo Zelensky si loo hubiyo in Ukraine ay kursi ku yeelato miiska go'aaminta mustaqbalkeeda. Waxay sidoo kale doonayaan damaanad amni oo Ukraine ay leedahay oo ay Mareykanka inta badan ay ku lug leedahay, iyo awood lagu kordhin karo cadaadiska Moscow haddii loo baahdo. Dhanka kale, ciidanka badda ee Israel ayaa weerar ku qaaday warshad koronto oo ku dhow caasimadda Yemen ee Sanca, sida ay sheegeen warbaahinta Israel. Telefishinka Al Masira, Xuutiyiinta xiriir la leh ayaa Sabtidii sheegay in gardarada ay dhaawacday matooradii warshadda korontada ee Hesias, taasi oo sababtay dab markii dambe la xakameeyey. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa xaqiijiyey in kooxaha gurmadka degdega ay ka hortageen waxyeelo dheeraad ah. Dadweynaha ku nool Sanca ayaa sidoo kale sheegay in ay maqleen ugu yaraan 2 qarax oo waaweyn. Bayaan ay warbaahinta Israel baahisay ayaa markaasi Axaddii ciidanku waxa uu ku sheegay in weerarka uu ahaa jawaab toos oo ku aadan weerar soo noqnoqday oo Xuutiyiintu ay ku qaadeen Israel oo ay ku jireen gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliye lahayn. Xuutiyiinta ayaa tan iyo sanadii 2023 si joogto ah gantaalo iyo drones ugu weerarayay Israel, iyagoo ku jawaabayay xasuuqa Israel ee ka wada Gaza. Israel ayaa ku argudatay duqeymo ka dhan ah kaabayaasha Yemen oo ay ku jirto dekedda Xudayda, taasi oo muhiim u ah gaarsiinta gargaarka bini'aadanimo. Sidoo kale, Israel ayaa weerartay garoonka caalamiga ee Yemen, iyagoo ku dooday in Xuutiyiintu ay isticmaalayeen inta badan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo diray Israel. Waxaa intooda badan la soo riday, balse iswadaarsiga weerarada ayaa sii ballaariyey saameynta dagaalka Israel ee Gaza ee gobolka. Mareykanka iyo Boqortooyada Midowday ayaa iyaguna duqeymo ka fuliyey Yemen kadib markii Xuutiyiintu ay weerareen maraakiib ku xidhnaa Israel oo marayay badda cas. Xuutiyiintu waxay sheegeen in tallaabadaasi taasi ay carqalad gelisay ganacsiga caalamiga ee baddaasi mara, ayna jawaab u ahayd dagaalka iyo godoominta Israel ee Gaza. Bishii May, Washington ayaa ku dhawaaqday heshiis lama filaan ah oo ay la gashay kooxda, iyadoo joojisay ololihii duqeymaha
islamarkaana ku bedelatay in la joojiyo weerarada xuutiyiinta ee ka dhanka maraakiibta maraykanka ee la xiriira maraykanka xiriirka la leh ee badda cas. hase yeeshee xuutiyiintu waxay ku adkaysteen in heshiisku uusan khuseynin weeraradooda dhanka Israa'iil. ciidamada maraykanka ayaa ka hor xabad joojinta fuliyey boqolaal duqeyn oo ka dhacday Yemen, kuwa oo ay ku dileen in ka badan 250 qof. madaxweynaha maraykanka Trump ayaa sheegay in heshiiska uu joojin doono duqeymaha. heshiiskaasi ayaa si lama filaan ah u saameeyey Israa'iil, iyadoona ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu adkeeyey in dalkiisa uu isdifaaci doono haddii loo baahdo keligii. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayay wixii war ah oo caalamka inaga soo gaaray. wuxuu kusoo kordho wararkayga dambe ayaad ku maqli doontaan. fadlan subscribe iyo share intaba noogu dara, like gareeya muuqaalka la wadaaga asxaabtiina.